السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوانيسا idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhduna ay tahay 29 bisha Juulaay sanadka 2024 waa barnaamijkeeni subaxnimo waa barnaamijkeenu ku soo gudbino macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay xalayto haddaba dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa xuutiyiinta Yemen oo arin la yaab leh la yimid iyadoo laga yaaban yahay habdhaqanka ay la soo baxeen iyo taagtiga ay doonayaan cusub inay kula dagaalamaan ciidamada Mareykanka iyo isbahaysigooda iyo Israa'iil haddaba maxaa laga qoray sheekadaas barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa وعسو كله برنامج كان يدين كوسو قد بين دونا إذا كإسرائيل أو عرين لياب لشيء وحين هذين وحيابها قار وحيوجيهين معجزو حق ربك صعد قرية أينو بربرني نكتكنجني مركان كتجنو حكشوا بحاي مقاومة دي سيديكو بدبادين هذا هو وربحين عجائب له وعريتها كصابسن أو لقري برامج كان يذكره وذاك دورة وعشان كل برامج كان يذكره هي وقت جاء كل من دوران مدحوينها تركيا إيو مدحوينها سوريا أو وربحين تركيا أي شيئين كل تورا أكثر مركز خياري مالك استوى جوكتان كسر وهذا برنامج كان صباح نمو وصباح نمو السنينة برامج كواحد نقول بالله بينا مدحوينها تركيا رجب طيب أردوغان iyo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa la sheegay waqtiga ay kulmi doonaan wadooyinkan Erdogan waxa uu waday siyaasad ku saabsan in cilaaqaadka wadamada islaamka ay la leedahay Turkigu ay aad u xoojiso cadaawada meesha laga saaro si aan marnaba looga faa'iideysanin dunida islaamka dadka muslimiinta aan la isugu dirin iyaga aan la isu soo marin siyaasadaasu waxa ay hadda noqotay mid mirar dhashay Erdogan waxa uu la heshiiyay Saudi Arabia Imaaraadka Masar waxa ku dawladahaas oo dhan cadow ay ku ahaayeen maanta marka waxa yaraaday miidiyihii ay ka caay jireen wixii ay ka sheegi jireen wixii oo dhan waa yaraaday waxa sii kordhay cilaaqada dhinaca ganacsiga wax isdhaafsiga wixii oo dhan kordhay marka wuxuu booqasho ku tagay Sacuudiga wuxuu booqasho ku tagay Masar wuxuu booqasho ku tagay Imaaraadka isaga u tagay iyaguna way yimaadeen laakiin Suuriya wuxuu ku casuumay inuu yimaado Istanbul ama Ankara laakiin uu ka cudur daartay xujooyin uu keenay ku saabsan ciidanka Turkiga waa inay ka baxaan meesha Turkiga wuxuu ciidankayga waa ka saarayay Mareykanka iyo kuwana ka saar haddii kale annaga amniga meesha u joognaa dadkan Suuriyaanka dadkan iyo waxa kana u joognaa arintii marka waxa soo dhaxgalay Ruushkii hadda ka shaqeynaya la leeyahay arinta inay kulmaan marka waxa lagu kulmi doonaa meel xuduud ah Suuriya iyo Turki halkaas ay isku arki doonaan Turkiga ee Ruushka ayaa arinta ka shaqeynaya in marka xiriirka dawladahaas la soo celiyo haddaba wargeyska leeyahay Sharqul Awsad ayaa wuxuu qoray warbixin laga helayo dhinaca Turkiga waxay sheegayaan kulanka dhexmari doona Assad iyo Erdogan inuu dhici doono bisha soo socota haddaba warbixintu marka way sii socotay waxa leeyahay Turkiga ayaa waxa la sheegayaa in ay kulmi doonaan warbaahinta laga helayo warbixinada laga helayo dhinaca Turkiga waxay sheegayaan kulanka dhexmari doona Rajab Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Suuriya Bashar al-Assad inuu ka dhici doono xuduudka u dhaxeeya Turkiga iyo Suuriya meel u dhaxaysa ayuu ka dhici doonaa waxaana la sheegay in arintan ay ka wada shaqeynayeen Turkiga iyo mukhaabaraadka ninka ugu sareeya mukhaabaraadka Turkiga Ibrahim Kalin iyo ninka ugu sareeya mukhaabaraadka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Naryshchenko ninka la yiraahdo magaalada Ankara oo ay kulan ku yeesheen ay arinta aad uga shaqeeyeen oo marka ay noqotay arin cajiib ah waa tahay
marka meeshaas marka waxaa ka muuqanaya siyaasadda ay turkigu la soo baxday muddooyinkan in isbeddel weyn uu ku yimid siyaasaddii arrimaha dibadda dalalkii cadowga ahaa saaxiib laga dhigayo markii hore waa looga faa'iidaysan jiray turkiga waa la isticmaali jiray dalalkaas dowlad kasta oo turkigu isku dhacaan xaggay soo mari jirta marka hadda Erdogan wuu fahmay maadaama dalalkan darisna uu leeyahay dalal muslimna ay yihiin inuu marka wax walba oo dhex maray la iska iloobo hawsha sideedii lagu soo celiyo cilaaqadii iyo wanaagii qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa sheekada xiisaha leh ee noo soo socota waxay tahay ciidankii Israa'iil saraakiishiisii oo yaaban afka gacanta saartay waxyaabo la yaab leh ayaan ku aragnay leeyihiin Gaza waxa ka socda wax caadi ma bini aadamnimada wax ka weyn arkayna ay dheheen mucjiso rabbaani ah ay leeyihiin askartii Yahuuda ayaan halkaa ku aragnay haddaba sheekadaas way noo soo socotaa laakiin markan waxaan u gudbayaa arrin ku saabsan Yemen xuutiyiintii waxaa la leeyahay waxay u fureen albaabada cid kasta oo doonaysa inay la dirirto Mareykanka iyo xulufadiisa halkan imaaday xuutiga dhahay xuutiga wuxuu leeyahay dagaal ma rabta haa American iyo waxa kan in anagta ka geliso ma rabta haa kaalay halkan imaw meeshaan ka dagaalan markaas ilaa Pakistan ilaa Afghanistan waxa isku soo xiro wayaabay haddana waxa leeyahay Iran fududeynaysa tasiilaadka lagu soo raraayo dadkan meesha lagu keenayo waxa dhan Iran ka shaqeynaysa leey haddaba sheekadan marka waxa leeyahay waxay aad u cabsi gelinaysaa Mareykanka iyo xulufadiisa dhanka kalena Israa'iil cabsi weyn ayay ku abuuraysaa in xuutiga wixii muslimiin ahaa ee nimankan rabay inay nagta ka galiyaan isugu yeeray halkaas leeyahay haddaba marka aan idin soo warbixin wargeyska Asharqul Awsad uu ka qoray sheekadan Yemen waxaa ka jirta cabsi ayaa la leeyahay ku saabsan maleeshiyaad taageera Iran oo ku soo qulqulaya dhinaca magaalada Sanca haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay xukuumadda Yemen iyadoo aan ahayn midda xuutiga ee cadan ka talisa ayaa waxay sheegtay inay cabsi weyn ka qabaan maleeshiyaad Iran ay keenayso oo markaa xuduudaha ay ka soo qaadayso oo ay keenayso dhinaca Yemen iyagoo ku biiraya xuutiyiinta haddaba waxaa la arkay ayay leeyihiin xog la aruuriyay oo ku saabsan mudaharaadyadii ugu dambeeyay ee Sanca ka dhacayay waxaa lagu dhex arkay maleeshiyaad Pakistaaniyiin ah oo ka qayb galaya mudaharaadkaasi oo ay abaabushay jamaacada Ansaarullah haddaba waxaa leeyahay marka Yemen dowladeeda cadan joogta waxay leedahay wasiirkeeda warfaafinta Muammar al-Iryani waxa uu sheegay warbixin uu soo saaray in arintani ay si dhaba ula socdaan jamaacada xuutiyiinta inay ku wado khatar amni badda cas iyo khaliijka cadan waxa uu sidoo kale wasiirka warfaafintu sheegay ciidanka ilaalada kacaanka Iran inay ka shaqeynayaan kumanaan maleeshiya ah inay soo qaadaan oo ay soo gudbiyaan iyagoo ka keenaya dhinaca Pakistan iyo Afghanistan si ay markaa ugu biiraan xuutiyiinta oo markaa ay halka abaabul Iran ay ka wado marka dhinaca cadan magaalada cadan iyo magaalada Sanca Yemen way kala qaybsan tahay dhinacna dawladda joogta oo cadan joogta caasimadiina xuutiga haysta marka qoladii cadan joogta laga dhaxadlayaa iyaga la soo maray cid soo martayba waxay leeyihiin marka xogaan haynaa in Iran ay ka shaqeynayso ciidankeeda ilaalada kacaanka inay soo daldalaan oo ay soo qaadaan maleeshiyaad Pakistan iyo Afghanistan ay ka keenaan macnaha Iran ay xuduud la leeyihiin kuwaas Afghanistan iyo Pakistan marka way soo qaadayaan halkan xuduud badda ah jirta halkaan ka soo gudbinayaan halkaan keenayaan marka waxa lagu dhex arkay leeyin mudaharaadyadii ugu dambeeyay maleeshiyaadkaas oo hubaysan oo meesha dhex taagan marka waxay leeyihiin qatar cusub oo soo korortay waaye hala socdeen adduunka nimankii xuuti ahaa waa tageen kaligood ma aha wixii jihaadiistayaal oo dhan halkaa isugu yimid ay ku leeyihiin marka waxa warkan sheegayana waxa waaye wargeyska Asharqul Awsad oo soo xiganaya wasiirka warfaafinta ee dawladda Yemen ee cadan joogta
haddaba sheekada cajiibka ahayd ayaa noo soo socotaa ee ku saabsan arrinta wixii ay arkeen saraakiisha ciidamada Israa'iil ee Gaza ka dagaalamaya laakiin waxaynu ku yara nasanaynaa qadar xayeysiisa waxaan nahay Gasasos Group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah jiif quraac iyo weliba jimicsi Sono Hall Sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo weliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaasi ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka iyo ciwaanka hoos ku qoran mata ay xirfadle ka shaqeeya ama daneynaysa inay ka shaqeyso qaybta daryeelka caafimaad ee loo yaqaan keerka kuna sugan dhammaan gobolada kala duwan ee dalkan UK haddii ay jawaabtaadu tahay ha xarunta Sana Careers waxa idin wadaa fursad aad ku heli karto shaqooyin keera oo kaaga mushaar badanaya inaad u shaqeyso agensiya adigoo adeegsanaya adeega casriga ee Sana Careers. Sana Careers waxay ka caawinaysaa inaad hesho shaqooyin dhanka keerka sida hourly care, night shift care, live in care, respite care iyo dementia care. kaliya waxaad u baahan tahay inaad booqato website-ka www.sanacareers.com oo aad iska diiwaan geliso kadibna aad doorato shaqada aad doonto goob kasta oo aad kaga sugan tahay dalkan UK ballanteenu waa inaad hore u gaadho Sana Careers naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni subaxnimo inagoo ku jirna qaybihii ugu dambeeyay maanta oo isniina waa barnaamijkeeni ugu horeeyay haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybtan ugu dambaysa muddooyinkan warar kala duwan soo baxay ciidanka Israa'iil kuwa dagaalka ku jira iyo saraakiisha waxay la kulmayeen waxyaabo mucjisaal la yaab leh warar badan la sheegay eeyihiya wax la kulmay waxa dhacay kana wax ka dhaceen kan dhaceen mushkiladaas xagga lagu arkay xagga wax lagu arkay waxa meesha ka socday laakiin mucjisada yaab kale ee hadda Al Jazeera ay qorayso waxay tahay saraakiisha ciidanka Israa'iil ee ka dagaalamaya Gaza ayaa wuxuu yiraahdeen waxba nalooma sheegay in dhaheena ku aragnay waxa meesha ka jiray wax caadi ma marka maxay arkeen oo la yaab leh oo warbixinta aan idin soo wada ku jira waxaan aragnay leeyihiin guriyo dhan oo aan bambooyin ku garaacnay wax noolaa kara ma leedeen wixii noolna guriga ku dumay guriyii markii saas loo rusheeyeen oo dhulka la dhigo ayaan baabuurteeni marka waxaan isku dayaynaa inaynu marno marka diyaaradii markay duqeeyaan waxay leeyihiin marka dhulka dhignay mara taangigii ma soo maray Al-Yaasiin meesha inta ka soo dhaxbaxo oo saas isaga jafo boorki Al-Yaasiinkiisa soo wato nab war waxa kan ma dhintaan miya maxay wataan hatta wuxuu yiri annaga askarteena sida sharciga askarta sharciyeysan adduunka waxay wataan markay meelaha dagaalada tagayaan jaakado xabadda ka celiya koofiyado xabadda ka celiya waxyaabo badan ay wataan daawooyinkooda wuxuuda dhanac ku raran ayaga dhan marka waa inay dhintaan macnaha ma rabaan kan funaanad yaro wata burburkii oo ka soo dhaxbaxa adoo u jeedid oo guriyii burburkii inta ka soo dhaxbaxaan ay nagta ka gelinayaan marka waxa leeyahay maxaa la yaabtay waxayna waxaas wax caadi ma ahan dheen qof bini aadana meel war bambooyinka lagu dhuftay meesha caadi ma ahan dheen haddaba marka aan idin soo warbixintan cajiibka oo Al Jazeera ay ka qortay sheekadan waxa leeyahay saraakiil Israa'iiliyiin ayaa waxay sheegeen dagaalyahanada Hamas waxay ka soo baxayaan iyagoo nool burburka waxayna bedelayaan markiiba taagtiga iyo nidaamka ay ku shaqeynayaan journalka la yiraahdo Yadacood Ahranood ayaa wuxuu sheegay ciidanka iyo saraakiisha waxa ay sheegayaan Israa'iil ka qayb galay dagaalka ka socda Khan Yunis inay indhahooda ku arkeen magaalada Gaza dagaalyahanada Kataa'ibul Qassam garabka militariga xarakada islaamiga ee Hamas inay markaa taagtiigyadooda iyo waxooda iyo bedelayaan marka waxyaabaha aan la yaabnay waxa kamid ay leeyihiin saraakiisha iyagoo la hadlayay journalka
dagaalyahanada xamaas waxay ka soo baxayaan iyagoo nool burburka guryihii aan garaacnay oo aan duqaynay. marka wuxuu leeyahay sidii marka iyagoo hubaysanay kasoo dhex baxayaan halkaasaa marka ay nagtana u gelinayaan. marka wuxuu leeyahay waxaan la yaabanahay sida ay nimankana u badbaadaan. haddaba marka waa la tacliiqiyey, tafaasiila laga bixiyey, dadka arrimaha wax ka qora waxay leeyihiin sheekadanu sax way noqon kartaa, sababtoo ah waxaa laga yaabaa ay leeyihiin nimankanu godad inay meesha ku leeyihiin oo markay duqaynta bilaabato ay godadka galaan sidaas ay ku badbaadaan. kow taas waa way leeyihiin. midda labaad waxay leeyihiin nimankanu dee markii horeba dhimashadu kama baqayn, sida nimankan jaakadaha iyo waxa ay ku raran yihiin iyo waxaasi kama cabsanaynin. nimankan dee hadduu nool yahay uu nafta ku jirto horow ka istaaga ilaa uu ka dhintana waa wada ay ku leeyihiin. marka sheekooyinkaas cajiibka waxaa soo tabinaya waa aljaziira, waxaana laga soo xiganayaa wargeysyada kasoo baxa israa'iil kuwa ugu afka dheer, iyaguna waxay kasoo xiganayaan saraakiisha sare ee ciidanka israa'iil. haddaba barnaamijkeenii subaxnimo maanta oo isniina intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. haddii alla idmo barnaamijyada kale ayaanu idiin soo gudbin doonaa saacada kadib. fadlan fakar iyo aragti waxaa qabta noogu soo qor qeybta commentiska iyo fariimaha. sidoo kale barnaamijka haddaad ku cusub tahay subscribe ha ka iloobin youtube-ka, facebookana follow garay. ku xirnow barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan. inta aan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.